Bismillah, casharkeena maanta wuxuu dhacayaa sida tan. Waxaanu baranaynaa this iyo wixii ay ku saabsan tahay oo macnaheeda ah. This waxaa loo isticmaalaa qof amba shay kaas oo ku dhow ayaa loo isticmaalaa. We use this for one person or things that is near us. Waxaa loo isticmaalaa qof amba shay kaasoo noo dhow. Walibana hal qof ayaa u isticmaali kartaa amba hal shay. Waa tahay tusaale ahaan, this is an umbrella. Tani waa dallad. This is mobile phone. Kani waa mobileka lagu hadlaa, mobileka gacanta. Cell phone waxaa lagu dhahaa markii la joogo US, United States of America. What is this? Kani waa maxay? Markii su'aal this waa qof waxaa ku weydiinaysid. What is this? Markii aad su'aal ku weydiinaysid this oo kale. This is a desk. Desk waxaa la miiska kan oo walibana xafiisyada meelahaas la dhigaa lahaa. What is this? Kani waa maxay? This is a car. Waa baabuur agtaada yaala amba ku dhow. Saa hore u sheegnayba. Is this a pen? Markii ay su'aal tahay waxaa soo hormarinaysaa ista adigoo dhehaysid is this a pen? Kani ma qalin baa? No, maya. It is not. Maya ma aha kani qalin. Haddaba muxuu yahay? It is a pencil. Waa pencil ma ahane qalin biiro ma aha laga wada anfad. Haddaba casharkeena maanta intaasuu ku eegahay. Inta casharka la ku kulmayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.